ma ogtahay ciyaaraha ka socda Qatar in uu ku jiro wiil Soomaaliya oo lagu magacaabo Cafiif waliba ninkaasi wuxuu ka mid yahay ragga gacanta lagu taagayo oo lagu og yahay laacibnimada nacam ani agteeda laba bir dhaxdooda in baruun laga dhax bixiyo agteeda qiimo weyn kuma laha laakiin ciyaartan agteeda qiimo weyn ayay ku leedahay sababtuna waxay tahay dowladda Qatar ayaa waxay yiraahdeen gaalooy hada fiiri waa markii arrimihii dhan ay soo dhamaadeen wixii qarash u baxay ayaa waxay yiraahdeen gaalooy waxaan isku xukumaynaa diinta islaamka wixii ka soo horjeeda ma ogolaanayno khamra in la cabo calanka qaniisiinta la babiyo banaanada la isku boodo la ma yeelayno mid kamid ah gaalada ayaa wuxuu yiraahday cod weligii sidan u macaan weligii ma arag asagoo ula jeeda aadaanka waxaa la sheegaa oo la sheegaya hadda in this week inay soo islaameen 500 iyo dheeraad kaaga sii daran waxaa garoonka la keenay sheekh lagu magacaabo Sheikh Deer Zakir Naik ajiib gaaladu islaamku waxay ka aaminsan yihiin terrorist islam is terrorist dad dhigacaba wax kale aan aqaanin laakiin maalin saacado lagu maqarin karo xaqiiqda ay ogaan doonaan gaala badan ayaa ka xun arrintan ka socota Qatar sadarteed waxay sameeyeen YouTube channel ayay soo galeen live ayagoo dhahaya waa ciyaarta ka socota Qatar iyadoona ciyaartii ahayn midii xitaa waxaan arkay qaartoon ku daawanaysa 5,000 40,000 haddana tag ay tahay markaysa arrintan ugu waa muhiim al-islaam yu'la wala yu'la alayhi nabiga wuxuu yiri islaamka sareeya mana laga saramaro